runtii aan doonayaa suuqan yaala inaan ka warramo xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha dibadda siyaasaddii arrimaha dibaddu oo runtii waqtiyadii hore aad mooday inay hore u socoto waxay u ekaatay mid halkeygii ka soo noqotay oo aan gaadhin xafiisyadii looga baahnaa waxaad arkaysaa maanta arrimo caalamkii dhanna ay yidhaahdeen dhulkeennii dib ha soo noqdo waxa ayaan darro ama xafiiska cali khaliif gaadhay ayay xukuumaddeennii gaadhi kari weyday oo cali khaliif kaga awood batay siyaasaddii arrimaha dibadda berihii hore wasiirradii hore arrimaha dibaddu marka howlahan oo kale la gelay waxay samayn jireen Addis Ababa ayay sii tegi jireen oo ay halkaa meel kaga imanayaan oo dhan ay dhegta qabsan jireen oo dad ka sii warhaya arrinka aan ku caan iyo daynaanu saameyn ku lahayn cidna oo dalkeenu una nabadgelyo sugan waxyaabahaas oo dhan ay sii gaarsiin jireen oo adduunka u sii sheegi jireen ka dawada ka arkay dhulkeennii baa la leeyahay hatigina ee dib uga soo baxa waa mid runtii ayaan darro oo guul darro qankan soo hoyatay intii lagu mashquulsanaa hebel baa sidaa yidhi hebelka ma doonayo iyo ayaa dalkii dhannaa dushayna daraamay oo aad aragtaan xuduudaheena labadii dale aynu xuduud ka lahayn weliba dee aynu isku wanaagsaneen gaar ahaan Djibouti iyo Ethiopia xuduudeedu wuxuu xidhan yahay ummadda looma sheegin maxaa loo xidhay maxaa dhacay wax loo sheegay ummaddu waxay tuman tahay waja iyo xuduudaha dad tagay dad baa dawooyin u socdeen dad baa maanta dad baa dhibta taagan haddii aad tagtaan waja iyo nawaaxigeeda iyo meelaha laga baxay xuduudaha ayaa buu idin keenaya marka waxay runtii dalkii ka ahaayeen saaxiibka ahayn 20 sannadood aan maalin quraata aynaan diidin dee waa taa maxaan ku dhahay iyo kii wada shaqayneed dhinaca nabadgelyada iyo dhinac walba dib u eegis aan ku sameeynaa taasi maaha sababta waayo sababta ugu weyn ma odhan kartaa laakiin marka xukuumadda dhani ku mashquusho xafiis xisbiga ka mid ah dabcan nabadgelyadii iyo wax badan baa dayacmay sidaa awgeed saamaynta de waxba ka yeelan kartaa laakiin dayac baa jira dalkii wixii dib baan ku soo sheegay